wixii ka dambeeyay bartamihii bishii May ee sanadkan heshiiskii ay ku bahoobeen madaxtooyada iyo madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug waxaa soo ifbaxayay dhaliilo culus oo ka soo yeeraya qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Madaxda saddexdan maamul goboleed oo si lama filaan ah u qaatay aragtidii Xasan Sheekh, taladii iyo mas'uuliyaddii deegaanadoodana ku wareejiyay Villa Soomaaliya, waxay soo dadejisay inay dadka siyaasadda falaqeeya ugu yeeraan kuwa ah malxiisiin siyaasadeed oo ku tuntay shuruucda federalismka. Qoorqoor, Lafta Gareen iyo Guudlaawe waxay ahaayeen rag dusha laga saaray mas'uuliyad dastuuri ah oo ay ku matalayeen shacabkooda, waxayse si fudud ugu wareejiyeen mas'uuliyaddii iyo awooddii deegaanadooda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo sharci yaqaanada qaar ay ku tilmaamayaan tallaabo si toos ah xadgudub ugu ah dastuurka federaalka iyo kan dowlad goboleedyadooda. Waxa kale oo ay nasiib darro ku macneeyeen khubarada in madaxda maamuladan ay burburiyeen golihii wadatashiga qaran, kaas oo ay ka doorteen muunaynta madal taageerta xisbiga Villa Soomaaliya oo qudhoodu ay ku biireen lagana siiyey mas'uuliyado iyagoo aan dib u eegin dhaawaca ay arrintaasi hanaanka federaalka iyo wadajirka dalka ku keeni karto. Raggan saddexda ah ayaa barqacad ka takhalusay milkihii golaha wadatashiga qaran oo ahaa madal sare oo masiir umadeed lagu go'aamiyo, looguna talagalay inay noqoto madal lagu muujiyo midnimada, wadatashiga iyo ilaalinta xuduudaha kala sarreynta awoodda dowladda. Balse sabab ay iyagu keeneen awgeed, golaha ayaa maanta noqday mid aan saameyntaasi lahayn. Burburinta ahmiyadda iyo nuxurkii uu lahaa golaha wadatashiga ayaa qasbaysay in bog mugdi ah loo nisbeeyo dad xil umadeed hayay, balse ka leexday dariiqii ay ku dhaarteen. Waxaana hubaal ah in saddexda madaxweyne ee ka arrimiya Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug ay ka mid noqonayaan boggaasi madow. Inta la og yahay, ma jiraan wax wadatashi ah oo ay la yeesheen golayaashooda deegaanada, sidoo kalena ma jirto wax la tashi shacab ah oo laga sameeyey go'aanka ay ku taageereen qaybtana uga noqdeen xisbiga Villa Soomaaliya, taas oo ay khubaradu ku sifeeyeen mid abuuraysa niyadjab ballaaran. Aqoon-yahanada ka soo horjeeda go'aankii ay qaateen ayaa sheegaya in tallaabadaasi ay ahayd mid khiyaano qaran ah, waxayna tilmaameen in madaxda saddexdaas maamul ay dayaceen kalsoonidii shacabka deegaanadooda. Raggan oo la filayay inay qaataan door mas'uuliyadeed iskuna soo dhoweeyaan dowladda iyo madaxda maamulada maqan si golaha wadatashiga uu u ballaarto, ayaa maray dhaba kale iyagoo ayiday aragtidii Villa Soomaaliya, waxayna kaalin ku yeesheen in la sii kala fogaado cirkan uu isku shareero khilaafka siyaasadeed ee jira, kaas oo khatar ku ah midnimada, sidoo kalena sii durjinaya rajadii ku aadaneyd qabsoomidda doorasho xor ah oo loo dhan yahay. Saddexdan hogaamiye ayaa lumiyey fursad taariikhi ah oo ay ku sixi kareen jihada qaldan ee dowladdu qaaday, waxayna iska diideen inay dhowraan meeqaamka golihii wadatashiga, iyagoo dhanka kalena ka durkay inay difaac u noqdaan hanaanka federalismka. Waxay sidoo kale iska indhatireen inay cudud u noqdaan xasilooni siyaasadeed oo dalka ka hana qaada, waxayse doorteen inay noqdaan magac u yaal asalmadoorsho ah, iyagoo matalaadii dhabta ahaydna farqaha ugu shubay Villa Soomaaliya. Sida sharci yaqaanadu sheegayaan, arrintan ayaa liddi ku ah dastuurka iyo hanaanka federaalka, waxayna Qoorqoor, Lafta Gareen iyo Guudlaawe ku qeexeen rag burburiyey masiirkooda siyaasadeed ee mustaqbalka, ogolaadayna in Xasan Sheekh uu mar kale ku koro salaanka si uu hirgeliyo qorshihiisa ah baaqi ku aanshaha Villa Soomaaliya ee 5 sano oo hor leh. Waxaana khubaradu ay saadaalinayaan in daaqadda laga tuuri doono dhammidood marka uu Xasan Sheekh hadafkiisa gaaro, taas oo ah wejiga qarsoon ee siyaasadda.